asbuucii aynu soo dhaafnay waxaa magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar lagu qabtay xaflad lagu soo xirayay barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka Ramadaan kaasi oo sanad waliba bisha Ramadaan ay qabato idaacadda kulmiye oo kamid ah idaacadaha madax bannaan ee ku yaala gudaha dalka Soomaaliya isla markaasna loo qabtay dhageystayaasha 17 degmo ee uu ka kooban yahay gobolka Banaadir. tartankan oo maalgelintiisu bixiyo maamulka gobolka Banaadir ayaa sanadkan waxaa kaalinta koowaad ku guuleysatay degmada Wadajir. munaasabad si heesara loo soo agaasimay isla markaasna ay iska kaashanayeen maamulka gobolka Banaadir iyo idaacadda kulmiye ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale. Abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure waa agaasimaha guud ee idaacadda kulmiye waxa uu ka waramayaa marxaladihii kala duwanaa ee tartanku soo maray isagoo si wadajir ah ugu mahad celiyay maamulka gobolka Banaadir iyo iskuulada Banaadir Zone. haddaan ka warrabo tartankii taariikhda dalka ee idaacadda kulmiye qabatay ma ahayn kii ugu horreeyay ee ay qabato wuxuu ahay idaacaddii ugu horreysay ee maamulka gobolka Banaadir ay tartan wada qabtaan. waxay ila tahay sanadkan idaacado badan iyo xataa macal TV ayaa ka qayb galay hase yeeshee sanooyin badan tartanka waxaa qaban jiray idaacadda kulmiye iyo gobolka Banaadir. tartan muddo soo jiray ayuu ahay weliba iyadoo magaalada Muqdisho ay adag tahay in lagu dhiirrado in 4 saac oo habeenimo lagu tartamo oo dhalinyaro iyo aqoon-yahano inta goob isugu yimaadeen ay tartan ku qabtaan iyadoo aad u adag tahay oo nabadda iyo maanta xaaladda ay ku soo tahay aan ku sugnayn ayuu tartanka la qaban jiray. haddana waan u bareernay sababtoo ah ummaddu haddaysan aqoon helin nabad ma helayso. inta qofku uu ku jiro mugdi oo iftiin uusan helin waxaa la fudud inuu ama wax dilo ama la dilo ayaa u fudud. hase yeeshee markii ilaahay aqoon siiyo oo uu wax barto oo uu wax faa'iido nolosha bini'aadamka iyo qiimaha ay leedahay ayuu dareemayaa. marka waxaan uga mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka oo suurto geliyey tartankaas inuu qabsoomo weliba sanadkii u dambeeyey sii ballaariyey oo halkii idaacadda kulmiye iyo gobolku isla qaban jireen idaacado badan iyo macal TV ay isla qabteen. marka waa uga mahad celinayaa. waxaan kaloo u mahad celinayaa gudoomiye ku-xigeenada gobolka oo ayaguna qayb ku lahay qabashada tartankaas. waxaan si gaar ah u mahad celinayaa aqoonta bulshada aan bandhigaynay dugsiyada Banaadir Zone ayay ka soo baxaysay. dugsiyadaas oo degmooyinka gobolka Banaadir degmo kasta laga helayo oo ay ku yaaleen oo xarun ku leh. dugsiyadaas ayaa soo diyaarinaya aqoonta aan bulshada u bandhigaynay. tartankaas ma ahayn dhegeysiga idaacadda keliya adduunka dhan ayaa laga daawanayay oo live ayuu ahay oo cid kasta oo rabtay inay aragtaan hadda weli dib ay usii daawo kartaa oo YouTube-ka ayay ka helayaan. waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii tartankaa ka qayb qaadatay magaalada Muqdisho iyo maamulkeeda. waxaan leeyahay guulaysta intii garab istaagtana guul iyo garasho wacan. Ustaad Cabdullaahi Maxamed waa madaxa waxbarashada dugsiyada Banaadir Zone waxaa bulshadii ka soo qayb gashay munaasabada u sheegay ujeedka tartanku inuu ahaa sidii loo ilaalin lahaa taariikhda dalka iyo dadka Soomaaliyeed. waxaan u mahadcelinayaa Soomaalida lafteeda wacyigelinta balaaran oo quruxda badan iyo meelo badan taabanaysa ka soo jeediyay. inta ka dib waxaan rabaa dabcan idaacadda kulmiye iyo madaxdeeda dhammaan oo ay joogaan marjabta waxaan rabaa inaan xuso dabcan dugsiga Banaadir Zone wuxuu ka mid ahaa dadkii isku howlay arrimaha inay qaybtooda ka qaataan oo ay ka mid tahay diyaarinta su'aalaha. runtii tartanku wuxuu ahaa tartan aad u xasaasiya. intaas ka dib waxaan rabaa runtii tartanka
wuxuu ku saabsanaay runtii su'aalo u badan taariikhda dalka runtii waxaan u marnay dhibaato fara badan aan u marnay ka mid tahay maadaama waddankii maktabadiisii qaranka ay burburtay taariikhda waddankana in badan laga yaabo inay dadku ay hilmaameen runtii waxaan uga mahadcelinayaa idaacadda iyo dugsiga banaadir zone xusuusiye in badan taariikh badan oo la hilmaansanaa dadka xusuusiye dhigahoodana ku soo celiyey runtii waxaan leeyahay arrintaas waa arrin aad u baahan in da'da yarta Soomaaliyeed ay ogaadaan waddankoodu inuu yahay waddan runtii qaniya oo meelo badan iyo taariikh badan oo fac dheer leh dhan kasta markii laga eego xasuusintaas waxay u baahan tahay in waqti badan lagu soo celceliyo da'yar iyo da'weynba waxaan duminaynaa waddankeeni hooyo dib ha loo heshiiyo daa'imkiina uuntay kani waa maxamed cusmaan maxamed waana mid ka mid ah ardaydii ka qayb gashay tartankii ramadaan ee idaacadda kulmiye ay tabinaysay maxamed waxa uu u tartamayay degmada xamarweyne oo nasiibku saacidi waayey inay koobka qaado maxamed waxa uu hambalyo u diray dhammaan 17 degmo ee ka qayb galay tartanka gaar ahaan degmooyinka kale ah wadajir oo ku guuleysatay kaalinta koowaad hiliwaa oo hanatay kaalinta labaad halka kaalinta saddexaad gashay degmada cabdicasiis waxaan rabaa fursadan qaaliga ah ee aan caawa yeeshay ee hortiina aan ku joogo 27 sano kadib haweenkii ugu horeeyay ee halkan aan soo istaago inaan ugu mahadceliyo aan ugu hambalyeeyo maamulka hooshii uu soo qabtay ee caawa laga dhawaajiyay inay tahay xiritaan inaan ugu faa'iideysto inaan u hambalyeeyo tartamayaasha guud ahaan 17 degmo dhalinyaradii isku howshay inay ka qayb qaataan gaar ahaan degmada wadajir ee ku guuleysatay kaalinta koowaad inaan u hambalyeeyo kartida iyo kalsoonida ee tartanka ka muujisay iyo kaalinta ay gashay inaan dhaho hambalyo wadajir haddii aanan qaldaneen oo ku guuleysatay kaalinta koowaad sidoo kale waxaan rabaa inaan fursadan ugu faa'iideysto oon ammaan iyo hambalyo u soo gudbiyo degmada saaxiibada aan nahay ee kaalinta labaad gashay hiliwaa ayadana kaalinta labaad ay gashay waxaan rabaa inaan dhaho hambalyo sidoo kale waxaan rabaa fursadan inaan hambalyo u soo gudbiyo degmada cabdilcasiis haddii aanan khaldanayn ay ku guuleysatay kaalinta saddexaad waxaan leeyahay fursaddii aad macnaha iyo dhiirigelinta aad samayseen gaar ahaan maamulkiina inta uu idin saaciday waad ka faa'iidaysateen 14 kale ee degmo ee ka qaybgalayaasha ah ay ugu horeyso degmadii aan matalayna dhalinyaro ahaan ee degmada xamarweyne dadaalkoodii ma reebanin nasiibkoodii iyo calabkoodii waxa harsan waa bilo kooban haddii caawa la xiray waxaan doonayaa inaan idin sheego inaad caawa furtaan tartanka ramadaanka soo socda dadaalkiisii caawa inaad bilowdaan waxa adduunku uu ku tartamayo waa qalin sidaa sheegno 1945 ayuu adduunka go'aan ka qaatay in qori iyo dagaal wax lagu xalay adduunka hadda waxa uu ku tartamayo waxa waaye waxa af carabi lagu dhaho asraac alqanuuni adduunka tartankii wuxuu isugu bedelay qaanuun la isku mataqaanaa lagu tartamo ee lagu dagaalo marka waxaan boorinayaa mataqaanaa in fursadda dhalinyarada ay haystaan ee ah jaamacadaha tirada badan dugsiyada ku soo xiga macaahidyada inay ka faa'iidaystaan heerkooda aqooneed ee iska dhisaan si ay mataqaanaa u gaaraan wadamada horumaray ee lagu magacaabo G8 maxamed ismaaciil cabdullaahi waa gudoomiyaha degmada kaxda waxa uuna ku hadlayay magaca 17 degmo ee gobolka banaadir agaasimiyaalka bahda saxaafadda gudoomiyaha gobolka haweenka gobolka banaadir maama jawaahir idaacadda radio kulmiye iyo abwaan buule iyo dhammaan inta aanan magacooda meesha ku xusin dhalinyarada ciidamada dhammaan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh runtii caawa waa habeen farxadeed barnaamij in badan soo socday oo muddo bil ramadaan oo fadli badnayd aan isha ku wada haynay 17 degmo oo habeenkaasi habeen walba markii bacdul afur salaada taraawiixda marka laga baxo
ruux walba oo ama dhalinyaro ama aqoon leh ama mas-uul ah oo markaa dibba jooga uu dhegta ku hayay oo idaacadaha runtii aad iyo aad u codka dheer ee ay kulmiya ka mid tahay iyo kuwa kaleba oo nin waliba soo jiito marka la isugu yimaado maxalka waxaa weeye xaqiiqdii degmadii hadhaay marka waxoogaa dib u dhacday naxdin iyo waxoogaa culays bay ku noqonaysaa degmadii waxoogaa kaalinta habeenka soo gashana waa dariiq la sii socdo oo aqooneedoo lagu tartamaya ayay ahayd runtii waxaan u mahadcelinayaa saddexda degmo ee ugu horeysa degmada Wadajir iyo degmada Hurwa iyo degmada Cabdicasiis oo ku guuleysay koowaad iyo labaad iyo saddexaad runtii waxaan isleeyahay muddadii tartankan soo bilowday waa muddo taariikh leeyahayd oo bulshada Soomaaliyeed wax hadli kara iyo wax maanta shaqadi kara midna aysan jirin waxaan oran karaa aqoon tartankaasi wuxuu ka qayb qaatay maaragtay nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada waxyaalaha laga faa'iiday bay ka mid tahay waxaan xusuustaa xaqiiqdii anigu meeshii aan tartankaasi kaga qayb galayay baan ogaa meel halis badan oo aad iyo aad u culays badan bay ahayd oo loo ogolayn in ay dhalinyaradu isuguna timaado waxna isku weydiiso tartan idaacadaha laga sii daynayana aan laga qayb gelin karin runtii markii la ogaaday in la tartami karo oo aqoonta la soo bandhigi karo oo bulshadu isu imaan karto waxaa soo baxday itifaaro nabadeed oo qaali ah oo aad iyo aad cajiib u ah aqoonta keliya ma aha laakiin waxay soo kordhisay isbarasho isfaham iyo isdhexgal bulsho ayaa la odhan karaa waxaa sidoo kale munaasabada ka hadashay Jawaahir Maxamed Barqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir waxayna maamulka iyo shaqaalaha idaacadda kulmiye u dirtay hambalyo iyo bogaadin ku aadan horumarka ay ku talaabsadeen guure oo aan isleeyahay wuxuu dhextaal u yahay bulshada ku dhaqan caasimadda aadna aan wada jecelnahay aan ka mid ahay dadka dhageysta radio kulmiye abwaanguure adiga iyo tiimkaaga waxaan idinkaga mahadcelinayaa baraarujinta iyo horumarka ee hadba ku talaabsanayso Soomaalinimada iyo muuqaalka caasimadda iyo tilmaamaha aad ka bixiso waxaan aad u jeclahay dabcan inaan dhageysto idaacadda radio kulmiye oo aan lahay saaxiib dhow waa soo dhaweynayaa tartankan aqoonta iyo rabadaanka degmooyinka iyo dhalinyarada ku guuleysatana waxaan rabaa inaan dhammaantiin aan idin iraahdo hambalyo anigoo ku hadlaya codka haweenka gobolka Banaadir dabcan hooyo walbaba waxay jeceshahay ubadkeeda oo qurux badan waxay jeceshahay in ay ilmaheeda ka horeeyaan ilmaha kale aniguna waxaan jeclahay gobolka Banaadir inuu cid walbaba uu ka horeeyo cid kabaysa wanaajinaysana aad ayaan jeclahay marka idaacadda kulmiye waan u mahadcelinayaa ciddii guuleysatay iyo ciddii laga guuleystayba dhammaan tartankan waqtiga dheer soo socday ee ku soo gabagaboobay caawa in halkan loogu dhigo loogu xafladeeyo iyadoo maamulka gobolka Banaadir ay maaragtay sacabo furan ku soo dhaweynayaan cid walba oo wax u qabanaysa bulshada annagu waxay noo tahay udhaxaa waayo magaaladan baaxadda weyn ee 3 milyan ay ku nooshahay dabcan maamul wanaagga ayay tusaale u noqonaysaa in tartankii dhammaaday halkan loogu xafladeeyo abwaanguure mar kale waxaan ku leeyahay hambalyo ninkii yaaq wuxuu diiday ee yooca wax siiyey maxay alla xaq muxuu wax ka yaqaan weergaasaan jeclahay ilaa iyo gobolka uu xaq ka helana hadda waa ku soconaynaa waana in mar walba lagu celceliyo ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray oo lagu soo dhaweeyay codbaahiyaha
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir mudane cabdulaahi xaaji ereg waxa uu mahadcelin u diray idaacadda kulmiye oo mar waliba u taagan wacyigelinta iyo dhiirigelinta dadka Soomaaliyeed. anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha gobolka banaadir waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa idaacadda kulmiye oo mar walba u taagan wacyigelinta iyo dhiirigelinta ummadda Soomaaliyeed marxalad kasta ay ku jiraan iyo waqti kasta ay taagan yihiin ayadoo tarjunta ama cabirta dareenka dadka gaar ahaan dadka muqdishaawinta ee ku nool gobolka banaadir waxaana ka rajaynaynaa in ay hore u sii wadi doonto dadaal iyo horumaro badan oo aan rabno inuu ku tilaabsado gobolka banaadir oo aan doonayno inuu noqdo caasimad u qalanta dadka muqdishaawinta ah oo tabaya wax badan oo ka maqan haddii noqon lahayd daryeel caafimaad waxbarasho ammaan horumar baabuurta publiga ay raacaan koronto biyo iskoolo xanaanada carruurta jidad ku habboon wax badan oo ay tabayaan inay helaan mana heli karno mana gaari karno haddaysan garab nagu siin idaacadaha raadiyaha ama TV-ga ama dhammaan waxgaradka ku nool caasimadda Soomaaliyeed oo aan ognahay inay baahi badan u qabaan anoo ku hadlaya guddoonka sare ee gobolka banaadir una taagan in mar walba aan taageerno ama aan raacno damaca ama habiga ama hoobka aan naga leedihiin oo aad u sareeyo waxaan ku dadaalaynaa hadduu ilaahay yiraahdo in caasimadda muqdisho iyo dadka ku noolba ay la mid noqdaan caasimadaha adduunka ama dariska la ah ama caasimado kale oo ay wax badan ka gaabiyeen waxaan qabnaa haddaan isla jaan qaadno isgarab istaagno isku tashanno inaan haysano sabab walba oo aan horumar ku gaari lahayn sidaas daraaddeed waxaan kalsooni fiican ku qabnaa in aan taageero badan ka heli doono kulmiyana ay hormuud ka noqon doonto aasaasidda ama horumarinta maamulka gobolka banaadir 2018 rajada uu ka leeyahay in caasimadan ay yeelato iyo horumarka ay ku tilaabsan doonto waxa aan rabno waxay tahay in taariikhda ummadda Soomaaliyeed ay arkaan raadka aan bilownay meesha uu ku dhamaan doono oo ah horumar ay xaq u leeyihiin ayna mutaysteen dadka reer muqdisho dib ku filan way soo mareen inta ay dhibtoonay way dhibtoodeen marka waxay ka dambayso waxay u baahan yihiin dib u dhis iyo horu socod degmada wadajir oo gashay kaalinta koowaad ayaa sanadkan lagu doonsiyay shahaado sharaf ugu talagalay maamulka gobolka banaadir iyo lacag dhan 50 milyan oo shilinka Soomaaliga tartamayaasha degmada Hiliwa oo hantay kaalinta labaad ayaa iyagana lagu doonsiyay shahaado sharaf iyo lacag dhan 30 milyan oo shilinka Soomaaliga kaalinta saddexaad oo ah kaalmaha guusha la galo tan ugu dambaysa waxaa gashay degmada xeebta leh ee Cabdicasiis waxaana lagu doonsiyay shahaado sharaf iyo lacag dhan 20 milyan oo shilinka Soomaaliga si lamid ah waxaa goobta shahaado sharafyo lagu guddoonsiyay agaasimaha idaacadda kulmiye iyo iskuulada Banaadir Zone maasaba tabaalo dhisaa looma tabiya tiro iyo tayay leedahay target iyo yool waa kala tagtaa meelna way isugu timaadaa abka loo tartiibshay tahiya shaarka loo tolo inta gabay taqaan iyo murtida tahanka miisaaman ninba wuxuu la tiigsanahayaa tababarkiisii tulaalaayda iyo qaylad iyo toogad iyo shiishka tumaatida dagaalka iyo warmaha la isku taakeeyo sokeeyaha istaabtiyo fidni qaar u tiriya sanad waliba bisha Ramadaan warbaahinta kulmiye ayaa dhageystayaasheeda u qabata tartano badan kuwaasi oo lagu soo bandhigo aqoonta noocyadeeda kala duwan isla markaana abaalmarin qaali ah lagu doonsiya kooxda hanata kaalinta koowaad ee sanadkaasi halka kaalmaha labaad iyo saddexaad kuwa gala iyagana lagu doonsiyo abaalmarino u dhigma aqoontii ay soo bandhigeen dadku waa walaalo dubkii nebi aadam ay ka soo dureereen waa ulyadiirkeed
da'yari da'weynbo waxaan duminaynaa waddankeeni hooyo dib ha loo heshiiyo daa'imkiina uuntay dagaalka sokeeyo debka demi waaye dabool naga saar